مثلها هاي روضي قف حجابا وحجاب كسحدة هاي وطو هرمره قاري كرا أم تلابسن كرا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لي قال يا ملك السعودون كانت كجوبتان وبلاشي الملك حسن محمد وإذن العافمات براق كنا ولادا انت حنوصل الله سبحانه وتعالى عز وجل عافية انت عافمات خبتنا الله سبحانه وتعالى عز وجل والسيادية ولا لي قال يا آد أيضا ما سنتين إرجلنتين يقرب استاجينا وإذن كجم هتعلنا يا ما شاء الله ما أنت وحمرتي برنامج كي تحناها أها أستر جركاجي مرتي ما أنت وحمرتي هو ولا شيء روضة عبد الرحمن حبيبتي كسر هو برنامج كان قروح البدن له أستر جركاجي مرتي ما أنت ما صنت حبيبتي وأنا دوها شكرا. روضة سيدا وأركتها برنامج كان أستر جركاجي مرتي ما أنت فرح سنة وأنا سود وينا يا ما شاء الله ما شاء الله. روضة يحال لها قبله وحيدهن حجابك هوسو دعواي maxaad kula dardaarmaysaa gabar ka soo dhaheysay xijaabka hoos u dhacwaaye horumar lagama gaari karo ayadoo xijaabka la wato ama social media ma soo gali karto gabar ayadoo xijaaban yani qalad ay ka aaminsan dadka gabadha xijaaban inay banaanka soo bixi karin inay bulshada qayb ku leheenin ama wax ka dhex qaban karin maxaa leedahay dadkaas xijaabku waa sharaf ale xijaabka ka mar walba waxaan ilahay ka daalin sax waan soo dhaweynayaa gabdhaha asturan kuwa asturnayn waxaan ilaahay xaq ha tuso إلى إنكيس حبيبتي هذا وما صنت هاي مثلها هاي روضي قف حجابا وحجاب كسحدة هاي وطو هرمره قاري كرا أم تلابسن كرا سفي عن هذا وين ولي هرمره قاري كرا على شيء كان وصل أنت تقول صح مرة البنو على قبلها حجابك إنها كتجين حجابك وشرف يقيمه وحول البوحة أدوك وناس حجابك ولا خاط أنا قتجين قالوا ربنا شرفت هذا حجابك ما شاء الله هذا كوما هدعلنا ولا شيء ولا عدي روضي وحالة هاي gabadha haday ayadu xijaaban soo gasho social media bulshada taageerta ma helaysaa lahayd su'aashaas adoo xoogaa si fiican loogu faahfaahinayo maxaa leedahay marka wallahi ani waxaan aaminsanahay qof walba say iska dhigto waaye xijaabkaaga adigoo qabo yani wax walba aad gaari kartaa laakiin dadka aaminsan waxaan dhihi lahaa qalbigiina wax ku jira ka saara sax oo saas yani aad u maleysaan ma baaha xijaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadha ku soo dejiyay waa aayad quraan aayad wax ka qiimo badan ma jiraan sax سيف عمرك وحنا يا قبلها قالوا فان حجابكين يعني قد دال مرنو صح انت صالح ما شاء الله هذا وما سنت ولا شيء روضو روضي ميدكليتا waxa jiraan gabdhahaas waxay leeyihiin asxaab ama qof nin yani gabadha uma bala guursanbo ninkii ay shukaansanaysa ama ay rajada kaleeda inay guursato malag hadii uu dhaho yani xijaabka iska dhig ama aan ku arka ama wax adiga kugu saabsan jirkaaga aan arko gabadhaas ayadoo xijaabneed maxaa kula talin lahayd gabdhaha yani ragga fasahaadinaya ama amarka ninkaas waqtiisa yeelaya maxaad kula talin lahayd wallahi ana waxaan kula talin lahaa qof isqaaga kula sarto dan iyo heela ka malahan sax qofka adiga danta kaala diinta iyo xaq iyo qeyrka iyo marwalba kugu dadaarma sax waxaan ilaa qof adiga sharaftaada ku dheelayso way ka dheero wax walbana yani waxaad ku heli kartaa xijaabka oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyo aayad quraan ah sax gabadh walbana sharaf way heli kartaa waxaa leeyahay qof walba si iska dhigto unbay yani meesha dhax walba sida iska tago meesha lagu gooracaa sax ani waxaan ilahaa xijaabkiina ku faana qof xijaabkaaga iyo asturaadada ku deesan danka amalay ka dhaqaaqada aqli leedahay sax خلاص ugu bixi lahaa arintaas ما شاء الله aad oo maasantahay wala shay rood waxay idin leedahay gabdha waa u jeedin gabar yahay ninka kula xijaabkaaga iska dhig ama jirkaaga qayb kamid ah tus ama meelo ii raac ma aha nin rajo kaale ama nin ku rabo ma ahan ninka ku rabo waxa tahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo ku dooray oo adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu karaameeyay ayuu ku qaadanaya waa ognahay anaga hadda tan casriga maanta la joogay in yani dadka dhahaan xijaabka hoos u dhacwaaye xaqiiqatan xijaabka hoos u dhac ma ahan bal waa inaad kor u kacday markaad xijaabatid waxa tahay gabar sharaf leh oo kor u kacday roday waxa u jeeday TikTok waxa u jeeday wiil gabar qaaban oo soo dhigtay TikTok wuxuu dhahay badeeca halawday oo meel ku halawday ama la soo haleeyay ayaad beecinaysaa oo dhahay
waxaana aaminsan hooda inaan isku kalsooneen subxaanallah qofka isku kalsoon yani qofka isku kalsoon jirkiisa ma qaabinayo dha waa sax asagoo hadda fiir iska heesaayo meelaha gabdhaha qaqaan waxaas fiirsanaya oo wuxuu ku dhahay kuma daawanayo wuuna ku daawanayaa wuxuu ku dhahay kuma daawanayo iskumana kalsooniyaa loo baahan yahay marka qof kalsooni xijaabkaaga markaa xiritid waa kalsooni si fiican sababta tahay waa isku kalsoon tahay feeskaagan aad ku kalsoon tahay habdhaqankaaga iyo dabeecadaada ku kalsoon tahay xaqiiqatan wixii ilaahi subxana watacaala kuu qorana ma weynaysid si fiican marka maxaa leedahay والله waxaan lahay gabar walba yani familka sharafteeda waa familkeeda yani ilaaliso xaqa Allah subhanahu wa ta'ala soo dajin ay qaadato rag ah waxana aqligiisa maanta 100% uu qiyaasan yahay sax marka waxaan lahay isku badnaada xijaabkiina ka tagina ninka adiga ku rawa kan xaqa mar walba kugu hanuuniyo ilaahay hanuunka iska laakiin kugu dardaarmo ku sheego marka waxaan lahay xijaabkaaga ka tagin ninka ragga intuu yani adiga waqti in ka badan ogyahay xijaabkaaga iska dhig waa sharaf ninka adiga danka lehna mar walba kan yani ilaahay dadkiisa walba kugu dardaarmo laakiin waxaan leeyahay iska dhaaf isqaawnaashaha sharaf ma aha qaawnaasho sheekh lagu way astronaut qaawnaasho lagu helo waxaan ku dhihi lahaa wax yani ilaahay raali ka in way ka tag mar walba sax walaasheed qaaliga aada kaaga mahad celinaya barnaamijka quruxda badan leh aan kugu soo casuumay rooda su-aasha ugu dambeysa ayaa ku weydiinaya walaasheed qaaliga aheeday insha Allah gabadha muslimada ah ee ilaahi subxaanahu wa tacaala u dooray xijaabka inay qaadato gabdhaha maanta aaminsan iskada gabdho badan waxaa jirta xijaaban haddana xijaabka yani dadka qaar hadalkooda xijaabka iskaga dhigay in la dhaho takfiira tahay hebelo waa tahay sheekh hebel maa raacday qol heblaay maa raacday gabdhaha iskaga dhigeen xijaabka dacyadeenta iyo hadallada xun maxaad kula talin lahayd ayagana wallahi ana waxaan dhihi waa luusantiin Allah ni soo hanuuniyo mar walbana waxaan leeyahay xaq Allah ni gudo halaas u dardaarmaya صح walaasheed qaaliga aada u mahadsan tahay anigana waxaan ku darsanayaa walaasheed muslimada ahay qof bini aadan ha raaligelin qof bini aadan ah ha raaligelin Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ayaa ku dhahay astur jirkaaga muxuu ku dhahay wax walbo adiga lagu dhahay waxa ku jirto yani macnaa ku jiro macno wuxuu macno ugu jiraa intuu rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam imaanin waxa lagu qodi jiray god oo lagu duugi jiray adiga maadaama lagu duugi jiray maanta ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu aayadihiisa soo dejiyay nimankii adigu aasi jireen ayaa laga asturay hadda waxay ku leeyihiin dadka qaar waxaan raadinaynaa horumarkaaga hoos u dhaca ku haysta ayaan kor u qaadaynaa xaquuq ayaa lagaaga tuntay xaqiiqatan xaquuq ma lagaaga tumanin jirkaagana waxa loo asturay macnaha ku jira waxay tahay adigoo qurux badan oo nadiif ah inta lagu soo qabeeyo oo lagu libis ayaa godka lagu gelin jiray laakiin maanta nimca la gaaray ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa karaamad ku siiyay 3 jeer ayaad ka xaq badan tahay ninka ragga ah ilaahay ayaa ku karaameeyay gurigaaga ayaa lagu soo shaqeeyaa subaxii intuu baxo uu soo shaqeeyo oo wuxuu soo shaqeyn karaa ama soo xada ama soo xooga rafaad islaac wuxuu ku keeno adiga gurigaaga iyo qabowgaaga fadhiya ayaad cuntaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa karaamadaas ku gaarsiiyay godkii lagu qodayna ka badbaadiyay marka walaasheed muslimada ah waxaan ku leeyahay cidna dhig ha u joojinin xijaabkan adigoo wadatid horumar waad gaari kartaa meel kastana waa hiigsan kartaa niyadana iska jibinin ha isdhihin gabadha haddii ay wax barato oo diin barato waxba kuma qaban karto ogsoono inay bulsho ku baahan tahay ee u baahan tahay inaad wax u sheegtid ma og tahay dadka jira dadka adduunka ku nool inay rabaan qof wax u bilaabo haddaa adiga u bilowdid 10 qof ku soo raacayso 10 kale soo raacayaan meeqayna qan karaan marka walaalahay qaaliga ah aad u maasantihiin oo idinkaga mahad celinaa dhiirigelintiina barnaamijkeena halkan ayaa ku soo afmeereynaa walaasheed Rooda maxaad u sii dardaarmaysaa barnaamijka gabagabawaay aniga waxaan ku dardaarmayaa gabar walba oo Soomaaliyeed ama hooyaha ahaato ama gabar la qabo ama hadda rajalaha ahaato ilaahay baa ku karaameeyay karaamada Allah ku siiyay ku shukri waa nimco aan la heli karin assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتهين برنامج كالكس أيكو سؤال ميريا أنت أكو كل من دون برنامج كان لعينا وحين كتك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته